madaxda ugu sarreysa Puntland ayaa boqolaal ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Garowe waxa ay salaada Ciidul Adha kula tukadeen garoonka kubadda cagta ee Mira Awaare waxaana halka khudbado isugu jira duco iyo dardaaran ka jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii halka ku tukanaysay Islaan Ciise Islaan Maxamed ayaa ummadda muslimiinta ah alle uga bariyay in uu maslaxad dhex dhigo Ciid wanaagsan dhammaantiin wixii muslimiin ah ومدرسة جوجا يوحي مدرك لجوجا إلى أنا وحنا كبرينا من يالك وحرين إنه قدره أودي سيومان تاقيمها عليه فرحة يو إنجا وعن إسلام حدنا وحبا أودين إلى وحنا كرتشينينا أما كبرينا إنه kumayaalku xoreynayo inuu ku daro muslimku meelu joogana maslaxad khayr qabto uu dhaxdo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Mawlid Xuseen Guhaad oo ku sugan magaalada Garowe ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu la ciido shacabka Puntland waxa farxadii ah inaan maanta ku tukado oo la ciido shacabweynaha reer Puntland anigoo shalay maanta ku sugnaa dawlad goboleedka Puntland waxaan sidoo kale munaasabadan uga faa'iideysanayaa meel ay joogaanba dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta Soomaaliyeed dibadda iyo gudaba in ilaahay sanadkan sanadkiisa uu ku gaarsiiyo baraare midnimo iyo isku duubni inta haddaan uga gudbo waxaa dareenkayga soo jiitay labada maalmood oo aan joogay waxaanan 28 sano ku arag gobolka aan ka imid ee koonfurta amni iskaraamayn kala dambayn iyo dadka oo dareensan dawladnimada waxa ay tahay amniga madaxweynaha dawladda Puntland ayaa dhamaanba ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Adha sidoo kalena waxa uu bogaadiyay ciidamada Puntland isaga oo u hambalyeeyay mubaarak waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inaan maanta soo nimaadno Ciidul Adha waxaan ilaahay uga rajeynayaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dowladda Puntland meel kasta ay joogaanba inay ku ciidaan ciid wanaagsan inay ku ciidaan amni inay ku ciidaan wadajir iyo midnimo ayaan rajeynayaa waxaan sidoo kale aan rabaa inaan bogaadiyo ciidamada Puntland meel kasta ay joogaanba ilaalinaya sugaya nabadgelyada ka sugaya cadow gude iyo mid dabadeed labadaba waan bogaadinayaa iyaga iyo reerahoodana waan hambalyeynaya ilaahay waxaan ka rajeynayaa in ciideeda kale uu nagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo amni insha Allah waxaan sidoo kale rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee walaalkeen Mawlid oo nagala soo qayb galay munaasabadda ciidda martina noo ahaa bariyahan waxa la soo dhawaada dalkiina ku soo dhawaada dadkiina ku soo dhawaada waxa aad iyo aad maanta looga hadlay amni waa muhiim anagu isaga raacayna taabto waxaan rabnaa inaan u sheegno cadawga yaga mid fartiin aan u dirno fartiintaasna waxa weeye shacabka reer Puntland iyagoo wada jira ayay wajahayaan caqabad kasta oo ku soo aadan waana isaga filan yihiin cadawga isbahaystay markaan isbahaystay aan leeyahay waa dab weeye xiriir qoto dheer ayaa ka dhaxeeya labada cadow kan dariskeena ah oo daandaansiga noogu yimid iyo kii awalba dhibtan ugu hayay shabaab way muuqataa iskama dhacdo in shabaab iyo daacish dalka qaarna ay dhib ku hayaan oo ay shideeyaan maalin walba qaarna aysan xagtin aysan gaarsiin aysan wax dhib ah aysan u geysan oo garan kartaan aqalka saliimka ayaa noo sheegaya
عرنا مركا إن كبور يدتك إن إسكاك شدان أمنية إن أي لشغيان عيدا ماذا إن أي أقعدان إن ورشا يلي الكعيب سوخر دي وحي أن نسوها نمكرنو وأن نعرض عيني كذا نعرض عينينو وحي كذا يعني وأن توبي واينا إن أنو قعان برئيسك قبرنو إنه إسكاشان إن دمانتين شعب إيو دولة إنتبا هذا محمد جامع سومالي نيوز تي في مقالة قروي.